qodobkeenan waxaan daawadayaal ku eegi doonaa maanta oo isniin gelinka dambe 29 bisha oo maanta ku astaysan ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay kulankoodii caadiga ah kalfadhiga ku leeyihiin xaruntooda iyagoo ka doodi doono sidoo kalena ajandaha miiska saaran uu yahay Somaliland aqoonsigeeda iyo arrimahan golaha ammaanka ayaa markii ugu horeysay ay tahay ay soo hadal qaadan arrimo Somaliland oo looga hadlo golo ammaan arrintan oo Somaliland ugu dhigan taariikh cajiib ah waxaan kula wadaagi doonaa dhinaca kale Israa'iil oo si cad u sheegtay in aqoonsiga Somaliland cid diidan ay ku tilmaantay munaafiqiin sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh oo kulan xasaasi ah la qaatay oo ku aadan arrimahan masiiriga ee gobonimada iyo kala gooynta qarannimada Soomaaliyeed qaar ka tirsan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir dhammaan qodobadaas ayaan kaga faaloon doonaa inta daqiiqada ay halkan iga daawanayto fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato janaalka Amiir Suleymaan subscribe-ti ugu cimaamad fadlan muuqaalka like saar share garee la wadaag saaxiibadaada adiga kuugu dhow aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waa tahay daawadayaal golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta oo isniin ah waxa ay si cad uga hadli doonaan sidoo kalena go'aanka laga hadli doono ama ajandaha looga hadli doono ayaa ah Somaliland iyo aqoonsiga Israa'iil Somaliland ayay farxad iyo reereyn u tahay iyo taariikhi iyo masiirkeeda in markii ugu horeysay 34 sano haatan looga hadlo golaha ammaanka ee qaramada midoobay taariikhdan ka sokow Somaliland ayaa waxa ay dhinaca kale u tahay fursad ah in ay ku soo jiidan karto indhaha caalamka oo ah hadalhaynta xoogan iyo in golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo 193 dal ay fadhiso mar kale lagu soo hadal qaado arrimaheedana lagu lafaguro dhinaca kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa 31 bishan Janaayo ee sanadan nagu soo foolay 2026 oo maalmo qur ah ka dhiman yihiin waxa ay noqonaysaa dhinaca kale Soomaaliya gudoomiyaha shirkaasi iyadoo bil walba dal loo dhiibo Soomaaliya oo halkan markan doorteeda ay tahay sidoo kalena loo doortay ayaa halka bil ee soo socotay ee Janaayo waxa ay hogaamin doontaa shirkan dhinaca kale hadii aynu eegno daawadayaal Israa'iil ayaa wasiirka arrimaha dibadda waxa uu sheegay in si cad ay u taageereen sidoo kalena 34 sano ay Somaliland jirto shalina ay dhalalin sidoo kalena cidda diidan ee ka hor imaasan ay wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil waxa uu ku tilmaamay in ay yihiin munaafiqiin ka hor imaasan horumarka Somaliland isagoo sheegay in Israa'iil weerarada lagu haayo aysan ka joojinaynin in ay iyada aayaheeda iyo xiriirkeeda caalamiga cidii ay u aragto danaheeda ay ka fushato amaba ay aqoonsato ay ka joojin doonaan iyadoo sheegtay in dawladda qaar ay ku soo qaadeen weerar ku aadan aqoonsiga Somaliland balse Israa'iil ay dhag jalaq u sii doonin dhinaca kale daawadayaal Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa sheegay in Israa'iil hadii ay si rasmi ah u aqoonsato sidoo kale saldhig ciidan ay ka samaysato berbero ama marinka badda cas ee Somaliland ay si cad u weerari doonaan Somaliland ayna ka shalayn doonaan hadii Israa'iil ay isku daydo in ay saldhig ciidan ka samaysato Somaliland arrintan oo qatarta iyo halisteeda wadato sidoo kalena laga digayay in bariga dhexe dhibaatada ka jirto ay mar kale Israa'iil doonayso in ay u soo sararto geeska Afrika taas oo midowga Afrika hore uga hadlay in Israa'iil dabka ay holcisay ee bariga dhexe ay doonayso in ay geeska Afrika mar kale ka samayso ayna gaarsiiso iyagoo baaqi caalamiyeed ka soo dabadiray ay ku joojinayaan aqoonsiga Somaliland midowga Afrika ayaa haatan mar kale Xuutiyiinta dalkaas Yemen waxa ay ku hanjabeen hadii ay dhab noqoto in Israa'iil ay ka samaysato Somaliland saldhig ciidan ay noqon doonto targetkooda ay bariga Afrika duqeyn xoogan uga geysan doonaan Somaliland ayna ka shalayn doonto mar kale madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay waxa uu la qaatay kulan xasaasi ah maamul goboleedyada dalka sida galmudug koonfur galbeed iyo sidoo kale Hirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho ama barasaabka caasimada Muungaab oo ay kala hadleen arrimaha masiiriga iyo gobonimada dalka iyo qarannimada iyo sidii mar kale loo wajihi lahaa si wada jir ah iyo sidoo kale isku duubni loogu wajihi lahaa arrimahan Somaliland ee ku aadan aqoonsiga Israa'iil iyo in madaxweyne Xasan Sheekh oo ka cabsi qaba walwal badan ay ku hayso in dalal kale ay Somaliland
horey ula sii xiriirtay oo ay maalmaha soo socda aqoonsi kale ku dhawaaqi karaan waxna aan laga qaban karin maadaama sirdoonka Soomaaliya uu yahay mid liito hooseeyo aan dunina ka warqabin doorashada dalkana madaxweyne xasan sheekh uu ku mashquulo oo lagu murusan yahay isagoo wax ka yar 5 bilood ay muddo xileedkiisa ugu harsan tahay kuna baraarugay aqoonsiga Somaliland ee video call-ka ah ee loogu aqoonsaday Somaliland Netanyahu iyo Cirro ay ku wada hadlayeen taasoo si rasmi ah loo baahiyay jimcihii la soo dhaafay aqoonsiga Somaliland ee Israa'iil si kastaba ha ahaatee daawadayaal arrimahan Somaliland ayaa haatan ku cakiran madaxweyne xasan sheekh waxa uu kali ku noqday raadinta xiriirada caalamiga iyo ka hortagida arrimahan aqoonsiga in la kala jaro qarannimada Soomaaliyeed iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay Soomaaliya xaaladeeda siyaasadeed tahay mid aad u cakiran dadka caasimadda Muqdisho ayaa xalay banaabax ballaaran waxa ay ka dhigeen arrimahan iyagoo sheegay in aysan diyaar u ahayn in dhulkooda la kala jaro iyadoo banaabaxyo xoogan ay ka dhaceen Taleex iyo sidoo kale isgoyskaas ay isku soo baxeen dad dhalinyaro u badan oo caasimadda Muqdisho kuwaas u hugan calanka Soomaaliya diidana aqoonsiga Somaliland ee Israa'iil isku soo wada duubo xaaladda Soomaaliya ayaa ah mid cakiran siyaasad ahaan xiriir caalami ahaan iyo guud ahaanba sirdoonka Soomaaliya oo waxna ka warqabin iyadoo dhinaca kalena Somaliland ay ku naaloonayso in markii ugu horeysay golaha ammaanka ee qaramada midoobay maanta oo Isniin gelinka dambe lagu lafaguri doono loogana hadli doono arrimaha Somaliland haddii ay tahay markii ugu horeysay janaalkayga soo booqata fadlan subscribe saar muuqaalka like saar share garee la wadaag saaxiibadaada adiga kuugu dhow aad iyo aad ayaad u mahadsantahay daawade